الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الشرفاء وصحابته الحنفاء ومن تبعهم بالإحسان والوفاء أما بعد الله جل وعلا يا مهد اسكاله نغدغاي دد مسلمين هذا نغدغاي امتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله حلقدان waxaan ka hadli doonaa zakatul fitri daqarsoonka waa tan Soomaalida u taqaano sadaqatul fitrina waa la yiraahdaa zakatul badan waa la yiraahdaa way magacyo badan tahay زكاة البدن لأنها تطهر البدن والروح وايو بدنك أي جرك أي الروح ذي ريسا كما أن زكاة الأموال تطهر الأموال سيد زكاة الأموال كما زكاة المال أي حولها أدهرته وحاكلوا لي رادا زكاة رمضان مقعي بدن بيلاذهي لأن كثرة الأسماء تدل على sharaf ilmusamma waayo magacyada badnadeedii waxay tusinaysaa qofka lagu magacaabay sharafta uu leeyahay marka zakatul fitriga waa ay magacyo badan yihiin zakatul fitriga goormee la farad yeelay zakatul fitriga waxaa la farad yeelay fi sanati athaniya min alhijrati annabawiyya sanadkii labaad ee hijrada nabiga calaa saaxibihaa afdalu salawaati wa atamu tasliim weliba ciidoo laba maalin ka dhiman ayaa la farad yeelay zakaatul fitriga waxayna ahayd intaan la farad yeelin zakaatul maalka iyo zakaatul fitriga waxaa horeeyey zakaatul fitri wakiic ibn al-jarraax ayaa wuxuu dhihi jiray waa shaykhul imaam shaafici رحمهم الله تعالى شيخاس وكيع أيا وحو دهجري زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة زكاة الفطر أما دقرصونك بش رمضان وحي أتهي سيد سجود السهو للصلاة أي أتهي أوكله قفك مركو صلاة دكانيو سهو هدوغل أما هلمان وكدعو سجود السهو أيوكو كويا بش رمضان وحي كب أتهي زكاة الفطر يجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة زكاة الفطر waxay kabaysaa soonka nuqsaankii uu ku yimid ayay kabaysaa kabay u noqonaysaa sida sujuudu sahwiga bakab ay ugu tahay salaada nuqsaanka ku yimid طيب marka lagama maarmo zakaatul fitriga bixinteedii waa waajib ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيا وحويري نبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان زكاة الفطر أما دقرصونك أيو فرض يلي صاعا من تمر هل سوس أفر كومبو أو سوس هذا وحيكون قياسان قسعان قنبها سليد قنبها كل ماذا أو أفر كومبا أو تمر أيا لبحينيا وصاعا من شعير أما سوس أو سرينة ayaa la bixinaya ala kulli hurrin aw abdin adoon walba iyo xur walba ayaa laga rabaa ilaan adoonka waxa ka bixinaya sayidkiisa ayaa ka bixinayo dhakarin aw untha lab iyo dhadigba waa laga rabaa min almuslimiina kamita qof walba ayaa laga bixinaya nin walbana suus baa laga bixinaya afar koombo jumhuurul ulamaa waxay yiraahdeen oo salafta iyo khalafta kamita معنى فرض معنهيدي أيا وحا ويهي ألزم وأوجب ولازميي وواجبيي وحا أتكينيو إن فرض بمعنى أوجب اللولة جيدو وحا كمته وحي لحرير ستي فرض على بي لحرير ستي فير فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعة من تمر أو ساعة من شعير على فيرسو مجيدد على كل حر على داس waxay tusinaysaa in waajib ay tahay marka qof walba waa laga rabaa riwaayo kale oo saxiixa ku sugan
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ أمر أيوكسو أروري أمر وأمري والأمر يدل على الوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه عن الوجوب أمر كسيديس وحوت سنة يا واجب وحان سمي واجب بكوية بس إلا هذه قرينة أي جرته قرينة دا سو أي كليحينيسو واجب نمدا أي كليحينيسو طيب حكمة زكاة الفطر لو جيدي وامحي maxaa zakaatulfitri lanagu farad yeelay bil dhan ayaan soonay haddana zakaatulfitri bixiya maxaa lanoo leeyahay xikmada ku jirta bal fiiri ibn Cabbaas Allah ka raali noqday wuxuu yiri farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga ayaa farad yeelay zakaatulfitriga ama daqarsoonka ayuu farad yeelay tuhratun lis-saa'imi min al-laghwi war-rafath waxayna u tahay daahiritaan qofkii soomana bay u tahay daahiritaan lagwi iyo rafath hadalkii saaqidka aha uu ka dhacay iyo rafathkii afxumayntii iyo waxyaabaha uu ka dhacay ayaa waxay ugu noqonaysaa daahiritaan saa'un min ghalibi quuti baladihi saa'un min ghalibi quuti albalad quutul baladka waxa dadka beledka ku nool waxa ay u badan yihiin ay quutaan ayaa laga bixinaya oo suus ah يعني من غالب قوت بلد المؤدى عنه كان زكاة لغا بخينيو اما لغا غودايو بلدك او جوغو قوتك لعنو كان ugu badan ayaa loo fiirinaya مثلا fiiri hada anaga Soomaaliya joogna gaarahan Muqdisho Soomaali maxaa raashin loo badan yahay waxa loo badan yahay canjeeradan muufadan soortan ma arkaysa galeyda in la bixiyo waxa kale oo badan bariiskana maalin walba la iska cunaabo bariiskana waa la cunaa ma arkaysa waxa loo badan yahay waxaas wax ka fiican mala aadi kara oo ka qiimo badan oo ka fiican sida bariiska basmatiga kan ugu qaalisan dadka dibadaha ku nool oo ay ku wakiilanayaan ay leeyihiin zakaatul fitriga naga bixi lacagta ayaan ku soo direynaa dadka dibadaha ku nool galey ma cunaan ayagi galey ma cunaan maxay cunaan basmatiga kan ugu qaalisan bay cunaan marka kuwa dibadaha ku nool kan inta waxa ugu raqiisan ama galey oo kale laga bixi maayo ayagi waxa laga bixinaya basmatiyo kee ugu qiimo badan kan ugu qiimaha badan baa laga bixinaya ayagi tayib waayahay marka quudka la bixinayo kan ugu fiican waad aadi kartaa kan loo badan yahay waad aadi kartaa waxba dhibaato ma laha tayib qofka marka qayb bisha Ramadaan kamita soo gaaray qayb Shawwaalna ku dhashay kurkiisa bisha Soonfur waajib bay ku tahay مثلا canug baa dhashay bisha Ramadaan oo hal saac dhamaadkeedii uu ka dhiman yahay bisha Soonfur ama Shawwaalne dhalashadeedii hal saacad baa ka dhimanba cunug baa dhashay cunugaas ma ka waajibaysaa zakaatul fitri nacam way ku waajibaysaa maxaa yeelay labada juz ayuu haleelay juz min Ramadaan wuu haleelay juz min Shawwaalne wuu haleelay li'annahu adraka juz'an min Ramadaan wa juz'an min Shawwal waayo qayb Ramadaanka kamita canugaas wuu haleelay wuu dhashay qayb kamita Shawwaalkiina wuu haleelay waa laga bixinayaa طيب واجب weeyaan in laga bixiyo weligiisa ka bixinayo زكاة مركة هدبة شعيرة من شعائر الإسلام وصورة من صور التكافل الاجتماعي على المجتمع المسلم مركة في رئيس الزكاة وأستان إسلام كأستامه سكمته ومقالة إن لسكفى لقاض بلشدات مقالة دي كمته أو بلشد مسلمك معناه وحاويان وسيسمو وحبحن أو لجديي loo jideeyay liqadaa alxawaa'ij dadka danahoodii in lagu gudo ma arkaysaa wasabiilun min subul tafriij alqurbat waa wado kamid ah wadooyinka kurbooyinka laga faydo wadooyinka kurbooyinka lagu faydo wada kamid ah weeyaan an dhabil masghabati wal matrabati kuwa gaajada u saaxiibka ah kuwa dhul dhaca u saaxiibka ah gaajada intee ka tambadisay oo dhulka dhacay ma arkaysaa kuwa baahan in la siiyo oo wax loo taro fi saddi haajatihim haajaadkoodii in lagu cubo oo lagu owdo wa ignaa'ihim an dhulli su'aal in laga deeqo masaakiintaas wax weydiisashada iyo baryada dulligeedii in laga deeqo
maalintaa ciida waa maalin muslimiin ay wada faraxsan yihiin, masaakiintana inay nala farxaan baa la doonayaa. masaakiintana inay nala farxaan, adigoo faraxsan ciida aad ku faraxsan tahay, miskiinkana baahi ay hayso ama uu gaajaysan yahay, dadka uu wax weydiisanayo, maalintaasoo kale ma haboono walaalayaal. طيب oo dadka xoolahoodii ayuu u hanqaltaagayaa, lama rabo. maalintaa waxaa weeyaan ixsaan in la sameeyo, ma arkaysaa sadaqada fitriga in la bixiyo, xataa lacag jeebka inaad gelisid qofkii baahi oo kale aad ka dareemaysid, lacagta sii, wax sii, ixsaan sameey. wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin, ixsaan sameeya, maxaa yeelay ilaahay wuxuu jecel yahay dadkaas samafalayaasha ah ayuu ilaahay jecel yahay jala wacala. midna ogow ayuha almuslim wa ayatuha almuslima, qofkan muslimka ahow, gabadhan muslimada ahey, waxaad ogaataa ilaahay ballanqaadkiisa jala wacala uu yidhi wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wahuwa khayru raasiqiin. wixii aad bixisaan oo shay-un ah, ilaahay baa bedel idin siinayo subxaanahu wa tacaala. ilaahay waa khayru raasiqiina jala jalaaluh wa cama nawaaluh. nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiihi ilaa malakaani yanzilaan. maalin walba markuu waaga bariyo, laba malag ayaa soo degto. labadaa malag midkoodii wuxuu leeyahay allaahumma acti munfiqan khalafa, ilaahu kan xoolaha bixinayo bedel sii. wayaquulu alaakhar, malaga kalena wuxuu leeyahay allaahumma acti mumsikan talafa, ilaahu kan xoolaha ku dhigan ee xoolaha haysta, ilaahu baaba sii. kolka malagna wuu ducaynayaa, malagna wuu hawaartamayaa. malaga ducaynaya ducadiisa si uu kugu dhaco, dacwadiisa si ay kugu dhacdo, xoolaha bixi, xoolaha bixi, gacantaada xoolaha ha ku celin. mar walbo xoolaha aad bixinaysid, ilaahay bedel buu ku siinayaa subxaanahu wa tacaala. maa naqasat sadaqatu min maal, sadaqa maal ma ka nuqsaantuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. anfiq ya bna aadam yunfaq calayk, anfiq ya bna aadam yunfaq calayk. ibna aadamow xoolaha bixi, adigana waa lagu siinayaa xoolaha. waxaad bixisid bedelkeeda waa lagu siinayaa. waa ballanqaad, soo ma jeedid? kolka shaydaanka wuxuu noo yaboohayaa inaan xoolaha ku dheganaano. waad gaajoonaysaa, xoolaha wuu kaa dhammaanayaa, babababa xaggeed u socotaa, wax buu kugu akhrinayaa. laakiin allah jala wacalaa wuxuu noo ballanqaadayaa ilaahay bedel inuuna siinayo subxaanahu wa tacaala. ashayطaanu yacidukum alfaqra waya'murukum bilfaxshaa wallahu yacidukum magfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim. shaydaanka wuxuu idiin yaboohayaa uu idiin ballanqaadayaa faqri. war xoolaha hadaad bixisaan waad fakrinaysaan, baahi baa idinku dhacayso, waxyaabahaasuu idinku akhrinayaa. xaaladii foosha xumeed buu idin amrayaa oo bakhiilnimada ah. laakiin ilaahayna wuxuu idin yaboohayaa subxaanahu wa tacaala inuu bedel idin siinayo. wallahu yacidukum magfirata minhu wafadla, dembi dhaaf oo xaggiisa ka ahaatay buu ilaahay idin ballanqaadayaa, iyo fadli dheeraadsiin. waxa aad bixinaysaan dheeraadsiin iyo bedelkeedii ilaahay inuu idin siinayo subxaanahu wa tacaala. shaki ma leh, wallaahi shaki ma leh, xoolaha markaad bixisid ilaahay bedelkeedii inuu ku siinayo subxaanahu wa tacaala. ayib, marka zakada qaabkaasaa loo bixinayaa. haddaba marka zakada la bixinayo, suus ayaan dhahnay. suuskaas waa 4 koombo, koombada oo saliidda qumbaha ku dhammaaday 4 koombo oo kaasa ayaa la bixinayaa. haddaba marka goormee ugu fiican zakaatulfitriga in la bixiyo? zakaatulfitriga waqtiga afdalka ah ee ugu fiican waxa weeyaan maalinta ciida, salaada ciida ka hor in la bixiyo. maalinta ciida, salaada ciida ka hor in la bixiyo. macnaha salaada subaxaa dukatay, qoraxdii way soo bixi rabtaa, salaad subaxaa dukatay, wiil salaada ciida lama aadin, markaas bixi. masaakiinta safgeliyo, sii xoolaha, zakawaadka ku soor, ku safmar. ma arkaysaa? waqtigaasaa ugu fiican. way banaant, waxay waajibaysaa laakiin maalinta bisha ramadaan ugu dambayso qoraxdeedii markay dhacdo oo bisha soonfurna ay dhalato la arko, markaasay waajibaysaa. habeenkaas waad bixin kartaa, maalinteedii subaxii salaada ciida ka hor waad bixin kartaa. ciidoo 2 maalin ka dhiman, 3 maalin ka dhiman ma la bixin karaa? haa, waa la bixin karaa, waxba dhibaataa ma laha. ayib, waxaa marka isweydiin ah oo maalmaha nugu badatay ikhraaju lqiima,
إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا معناها زكاة الفطر لعك أهان كاش أهان ملو بحين كرا إن بدن با نوي دي سؤاشاس هرتا مسألة دا ولا ليال إن إلا سدح قول أيا كجر سدح قول أيا كجر قول ككوات وحويجان لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر قيمة أهان زكاة الفطر إن لو بحيجة لعك أهان كاش أهان إن لو بحيجة ما بنانا وأنا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم جمهور أهل العلم سداس أي كتغين وحيدهن زكاة الفطر لعك أهان لو ما بحين كرو أفر كومبو قيمة هذه وإمسا وإنتاس مثلا $2 إيبر $2 إيبر كاش أهانا داون بحيو مايا إلا بدر إن لبحيو ماهنه قول كاسنه حتى مذاهبتا سداسي قوان مركي لغا ريبو إن أبو حنيفة يا أصحابتي سمركي لغا ريبو مالكية يا شافعية يا حنابلة حتى ظاهرية سداسي قوان يعني waxay qabaan zakatul fitriga kaash ahaan qiimihiisa ma loo bixin karo طيب قول kalabaad marka قول kalabaad waxa weeyaan jawaazu ikhraj alqiimati qiimada zakatul fitriga qiimaheedii in la bixin karo kaash ahaan lacag ahaan in loo bixin karo waa madhabta xanafiyada ahnaafta madhabtoodii weeyaan ahnaafta ayaga waxay qabaan zakatul fitriga lacag ahaana waa loo bixin karaa lacag ahaanne waa loo bixin karaa qolka saddexaad jawaazu dafci alqiimati cinda daruura jawaazu dafci alqiimati cinda daruura qiimada zakaatul fitr qiimaheedii waa la bixin karaa markii daruura ay jirto oo dadka lacagta ay u baahan yihiin ilaan qofkan wixii asaga u baahan asaga yaqaanee lacag ahaan markaas daruura haday jirto in lacag ahaan loo siiyo waa ay banaan tahay qaar culimada kamid ahna sidaas ay qabaan hatta wajhun lil imam shafi'i ama wajhun lil shafi'iyya sidaas ay qabaan naftirkoodi ay riwaayo kale imaam ahmad lagu warinayo imaam an-nawawi ayaa kitaabkiisa al-majmu' wuxuu ku yiri far'un قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة وحان سو شاكني بويري إنوسا بنانين أنا أكتندا شافعية دا مذهب كيني إنيسا كبنانين قيمة إن لبحيو زكاة دحديدي قال أصحابنا بويري إمام النووي مركة أصحاب تيني أو شافعية دا وحيدهن هذا إذا لم تكن ضرورة حكم كان وحويلا hadaysan daruuro jirin mujeedido hatta shaafiiciyada wajkaasay qabaan kitaabka majmuuca ayaa ku yaala hadii daruura ay jirto marka waxa ay leeyihiin way banaan tahay kaash ahaan in loo bixiyo marka saddexdaas qool ayaa ku wada banaan madhab qiimaha bixinteedii oo kaash ahaan loo bixinayo طيب cunuga caloosha ku jiro ma laga bixinayaa asagana weli ifka aan imaanin culimada sida ay qabaan waxa weeyaan laga bixin maayo hadii laga bixiyana waxba dhibaato ma laha qaar ahlul cilmiga way dhaheen laakiin waajib kuma aha waajib waxa ku ah dadka aan soo sheegnay qofkii hal saac qoraxda ramadaan dhicideeda ay ka dhiman tahay oo caawa ciid uu yahay kadibna ciidii uu haleelay waa laga rabaa waa laga bixinayaa qofkaas cunugan haduu dhashay umulu ku jira la dhihi maayo waa laga bixinayaa adiga marka waxa weeyaan qofka hadii saacad kamid ah ramadaan juz kamid ah qayb kamid ah ramadaan uu soo gaaro qayb kamid ahna shawaal uu soo gaaro zakatul fitriga waajibay ku tahay marka walaalayaal maanta muslimiinta takaaful haddii si dhab ahaan ay ugu dhaxeen lahayd yani lama heleen miskiin tuugsada lama heleen hadda fiiri muslimiinta caalamka ku nool way fara badan yihiin muslim walbana waajibay ku tahay zakatul fitriga inuu bixiyo zakatul fitriga maanta 4 koombo qiyaasan 4 koombo bariis $2 oo kale ayaa lagu qiyaasaa bariiska basmatiga 4 koombo bariis markaad bixinaysid waa $2 $2 muslimiinta caalamka ku nool meeqa malaayiin muslimiin weeyaan meeqa balaayiin muslim waaye meeqa lacag meesh ku soo xaroonayso lacag badan baa la helaya laakiin waxa weeyaan
muslimiinta yacni meelaha ay ku bixinayaan iyo meelaha kaleetaba lama kala yaqaano. waxaa waajib ah marka meelaha lagu bixinayo dadkii mutaystay in la siiyo ayaa waajib ah, sida ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin walcaamiliina calayha. kuwaas in la siiyo sideedii sinfi ilaahay qur-aanka uu ku sheegay fii suurati tawba, sideedaas sinfi ayaa la siinayaa. zakaatulmaalkana sideedaasaa la siinayaa, zakaatulfitriga ama zakaatulbadankana sideedaas nooc ayaa la siinayaa. marka dadkii mustaxiqiinta ahaa ee mutaystay ee xoolaha u baahnaa ee ilaahayna uuna amray subxaanahu wa tacaala inaan siino, kuwaas inaan la orodno xoolaha, kuwaas inaan siino, kuwaas inaan ula degdegno ayaa waajib nagu ah. marka walaalayaal arrintaas zakaatulfitriga bixinteedii aan ku dadaalno, maxaa yeelay soonkaadii aqbalitaankiisa iyo in la rafciyo la koryeelo waxay ku xiran tahay oo mucallaq loogu dhigay soonkeeni sidii la rabay. uma soomi karno sida ilaahay uu nooga addoomaystay, uma ilaalin karno, wax baa naga dhici karo. ma arkaysaa waxyaabaha naga dhacdhacayo oo mar hadal wax naga soo fukanayo, waxyaabahaas oo dhan waxay kaaga kafaaro gudaysaa zakaatulfitrigaas. midda kale ducmana masaakiinta bay u tahay, quud bay u tahay masaakiinta walaalahaagii ee muslimiinta ah, ayagana quud bay u tahay. marka walaalayaal aan ku dadaalno zakaatulfitriga bixinteedii si xoog aan u saari lahayn insha allahu tacaala. meel walba aan joogno zakaatulfitriga, dal iyo dibadba aan joogno, zakaatulfitriga lagama maarmi karo, waa waajib, waa farad weeyaan. farada rasuulullah sala allahu calayhi wasalam, nabiga waa farad yeelay, faradna hadda lama dhaafi karo. marka soonkeena si lanoogu rafcin lahaa zakaatulfitriga walaalayaal bixinteedii aan kula degdegno, aan ku dadaalno insha allah. qaxootiyaashaan meelahan darad aan booqanay waxaa joogo dad baahan oo mustaxiqiin ah runtii. marka dadkaasoo kale inaan u gurmano oo zakaatulfitriga xataa aan u geyno waxa weyn imasay farxayaan kuwaasoo kaleeta dharciidkoodii ilmahoodii dharciid inaan ugu fikirno. ma arkaysaa taasna insha allahu tacaala xalqadeena soo socota ayaan si fiican uga hadli doonaa. intaasayta allah nagu anfaco. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا ليلة القدر يا رب العالمين، وجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وصلى الله على سيدنا محمد.